أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada channelka aqoon official haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee saaxiibadaada la wadaag waxaan dib u bilaabeynaa xalinta imtixaankii dowladda 2024 maadaama sanad dugsiyeedka uu dib u bilowday anagana waxaan bilaabeynaa xalinta waxaan ku hormaraynaa maadada xisaabta ayaan ka bilaabi doonaa ayaan xalin doonaa la socod wanaagsan sida halkan ugu jeedaan waa imtixaankii 2024 maadada xisaabta halkan waxaa ku qoran magaca ardayga halkan waxaa ku qoraysaa magacaaga oo afran ayaad ku qoraysaa magaca dugsiga aad dhigato iyo xarunta imtixaanka aad ku galaysid halkaa ayaa ku qoraysaa kadib waxaa ku soo haray qaybtan waxaa ku qoran rule numberka ama ID cardka rule numberka kugu qoran ayaa halkan ku qoraysaa sidoo kale numberka fasalka yacni classka marka aad fadhiisid ayaad ku qoraysaa maadada aad galaysid iyo taariikhda aad galaysid intaa waa muhiim waxaa si toos u gudgalaynaa marka imtixaankeena waxaan ugu horeeya qaybta goobagelinta ayaa ugu horeeya la socod wanaagsan su-aasha koowaad haddii aan fiirino waxaa lagu dhahay the imaginary part qaybta imaginaryga ama qaybta qiyaaliga ah of the complex numberkan ama complexkan z waxay la mid tahay -5 plus 6i waa a 5 -5 miya b -6 miya c 1 miya d 6 miya haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka d oo ah 6 imaginary waxaa lagu gartaa waxaa la socda i oo la isugu imaginary ah su-aasha ku xigta ee labaad haddii aan fiirino the sum waa suugeynta ama wadarta ama sum ruleka for cos a plus b yacni cos a plus b marka laga shaqeeyo la furfuro waxa ay noqonaysaa a cos a sin b plus sin a cos b b cos a cos b plus sin a sin b c cos a cos b minus sin a sin b d cos a sin b plus cos b sin a haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka c oo ah cos a cos b minus sin a sin b su-aasha ku xigta ee saddexaad haddii aan fiirino the number of population tirada populationka ama dadka in a village ee xaafad ayaa waxay ahaayeen 2400 ay ahaayeen if decreased by 15% haddii ay hoos u dhacaan 15 boqolkiiba then the new number of the population will be tirada populationka cusub ee dadka waxa uu noqonayaa a 4020 b 2760 c 2040 d 4200 haddaba marka hore aan soo saarno jawaabta waxaa lagu dhahay decreased by 15 15 ayay hoos u dhaceen 15 waxaa u qaybinaynaa 100 u qaybinaynaa 15 waxaa u qaybinaynaa 100 kadib waxaa ku dhufanaynaa tirada aan haysano oo ah 2400 so every waa remove gareynaynaa labadan eber hoos aa la bixinaynaa waxaa soo haray 24 5 ku dhufa meeqo waaye waa 360 ay noqon doontaa 360 so tiradii hore calculatorka ay soo qabso tiradii hore meeqay ahayd waa 2400 tiradii hore waxay ahayd 2400 waxaa ka jirtaa inta hoos u dhacday oo ah 360 kadib waxaa kusoo bixi doona 2040 ayaa kusoo bixi doonta waxaana xarafka c ayaa noo noqon doonaa xarafka c ayaa noo noqon doonaa marka ayaan ka dooranaynaa xarafka c ayaan ka dooranaynaa xarafka c waa 2040 su-aasha ku xigta haddii aan fiirino if set a haddii ururka a uu la mid yahay bilfur a b d f bilxer sidoo kale setka b ama ururka b uu la mid yahay bilfur b hakad c hakad e hakad f bilxer then a intersection b waa yacni waxaa laga rabaa a iyo b waxa ay wadaagaan b waxaa lagu dhahay f iyo b b-na waxaa lagu dhahay taas waa a b waxaa lagu dhahay b d iyo f ayay wadaagaan
C waxaa lagu dhahay D iyo F ayay wadaagaan, D waxaa lagu dhahay A iyo D iyo F ayay wadaagaan. haddaba intersectionka labadooda ay wadaagaan A iyo B maxay noqonaysaa? So markaan fiirino halkan waxaa ku jira B iyo F, halkan waxaa ku jira B iyo F. haddaba jawaabtu waa xarafka A ayay noqonaysaa. xarafka A ayay noo noqonaysaa. haddii aan fiirino numberka ku xiga, taa waa su-aasha afraad. waxaa u gudbaynaa su-aasha shanaad oo u gudbaynaa. If two die are thrown once, haddii laba dhaadhow la tuuro mar la tuuro, the probability of getting 6 yani probability lagu helayo number 6 waa A 2 loo qaybay 6, B 1 loo qaybay 36, C 2 loo qaybay 36, D 1 loo qaybay 6. haddaba jawaabtu waa xarafka B 1 loo qaybay 36 maadaama ay yihiin laba dhaadhow. su-aasha ku xigta ee lixaad haddii aan fiirino, su-aasha ku xigta ee lixaad, the value of limit x approach 3 5 waxay la mid tahay A 3, B 5, C 8, D 15. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka B oo ah 5 ayaan ka dooranaynaa. xarafka B oo 5 ah maadaama constant number uu yahay, isla constant numberkii uu soo laaban doono, sidaa ayaan ku dooranaynaa. su-aasha ku xigta toddobaad haddii aan fiirino, the sum of two complex number, sugeynta laba complex number oo ah -3 plus I iyo 2 plus 5I waxay la mid tahay. so marka -3 aan ku darno plus 2 waa ay kala jarmi doonaa, midna waa negative midna waa plus. so maxaa kasoo hari doona? -1 ayaa halkaa kasoo hari doona. I oo plus ah iyo 5 oo plus ahna waa isku darsamaya 6I ay noqon doontaa. waa xarafka A ayaan ka dooranaynaa. xarafka A. su-aasha ku xigta ee sideedaad haddii aan fiirino, evaluate qiimee integral 4x cubic -3 dx markii laga shaqeeyo waxaa soo bixi doonta. aan fiirina marka integration aan ka saarno. integration markaa ka saarno, integrationka qaabka lagu saarayo maxay ahayd? waa jibaarka hal ku dar u qeybi hoos wixii soo baxa. so marka waxaa haysanaa 4x cubic marka hal ku darno meeqa noqona? power 4 oo noqon doonaa, loo qaybiyey 4. -3 markaa integration rabno inaan ka saarno maxaa soo raaci doona? isaga xaraf ayaa soo raaci doona, x plus c. so kadibna 4 iyo 4 isla bixi, waxaa kuu soo hari doono x power 4 minus 3x plus c. haddaba jawaabtu wuxuuna noqonaa waa xarafka D 4x power 4 minus 3x plus c. xarafka D ayaan ka dooranaynaa. waayahay numberka ku xiga haddii aan fiirino, number 9, the first term of arithmetic progression is denoted by, xarafka ugu horeeya arithmetic progressionka ama serial numberska waxaa loo qaataa A D B R C N D A. haddaba jawaabtu waa xarafka D oo ah A ayaa loo qaataa. haddii aan fiirino waxaan u gudbaynaa su-aasha ku xigta ee 10aad ayaan u gudbaynaa. number 10 ayaa u gudbaynaa. number 10 markaa fiirino, quadratic equation yani quadratic equationka ama isla-egta quadratic can be solved by, waxaa loo xalin karaa factorization, elimination, comparison iyo addition. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka A oo ah factorization ama factorizing ayaa looga shaqeyn karaa. su-aasha ku xigta 11aad haddii aan fiirino, the derivative of the functionkan markii derivative lagu sameeyo y power 2 with respect to y, iyadoo la fiirinayo y waxay la mid tahay derivative marka la sameynayo y power 2 ama y square waxay la mid tahay. so markii derivative la sameynayo maxay ahayd? powerka hore keen, jibaarka halka jaray ahayd. so marka maxay noqonaysaa A 2x, B 2y, C waa 0, D 2x plus 2y. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka B 2y ayay noqonaysaa marka derivative aan ku sameyno. su-aasha ku xigta 12aad haddii aan fiirino, the lines are without, lineska waa A length, B line, C width, D point. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka C oo width ah. haddii aan fiirino
su-aasha ku xigta 13aad haddii aan fiirino waa su-aasha 13aad. aad u badan yahay laakiin gabagelinta 2 qayb ayaan ka dhigaynaa maadaama waqtiga uu dheeraanayo. su-aasha marka 13aad fiiri. The number 3 numberka 3aad is a vector of wuxuu vector u yahay a 20 b 48 c 16 d all. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka b ayaan ka dooranaynaa oo ah 48. waxaa noo noqonaa 48. su-aasha ku xigta 14aad haddaan fiirino. The mean of 5 numbers meanka ama tirisiinta 5 tiro ayaa wuxuu yahay 14. 4 of the numbers 4 number ayaa lagu sheegay waa 4 8 12 iyo 22. The 5 number is numberka 5aad waa marka a 11.5 b 24 c 42 d 9.2. so marka hore waxaan qasbannahay inaan kasoo shaqeynaa ku qasbannahay tirada haysano isku dardarsanaynaa. waxaan isku dardarsanaynaa ko 4 number ayaa haysano. numberka 5aad uu maqan yahay. numberka 5aad maadaama uu maqan yahay x u qaado uu maqan yahay lagu daray intaa isku soo dardarso. waxaa isku dardaraysaa 4 waxaa isku daraynaa 4 lagu daray 8 lagu daray 12 lagu daray 22. intaas maxaa la mid yahay 46. 46 waxay la mid tahay miinka ah haysana meeqa waay 14. intaa waxaa u qaybinaynaa tirooyinka meeqa ahaayeen waa 5 tiro ahaayeen. okay 46dan halkee ka keennay dhaane waxaa isku darnay 4 8 12 22 isku darsanay sidaa oo socda. x na numberka 5aad ee maqan. so marka waxaa sameynaynaa 5tana waxaa ku dhufanaynaa 14 ku dhufanaynaa 5taas waxaa ku dhufanaynaa 14. so 14 ku dhufa 5 meeqa la mid tahay 70 ayaa la mid tahay. so kadib marka waxaa dhahaynaa x lagu daray 46 waxay la mid tahay 70. so labadooda kala jari doonaa. x waxay la mid tahay 70 laga jara 46. ii kala jara marka calculatorka ay qabso 70 ka jar 46 ka jar waa 24. so xarafka saxda ah waa xarafka aan ka dooranayno b. xarafka b noo noqona 24. sidaas ayaa loo soo saaraa. waaya qaybta ku xigta aan fiirino. su-aashaas waxay ahayd numberka 14aad ahayd. 15aad aan fiirino. the mode of the data xogtan ama moodka w xogtan aan haysanaa waa mood. marka maxaa la dhahaa mood waxaa la yiraahdaa numberka ama xarafka ugu soo laalaabashada badan ayaa mood loo yaqaanaa. so halkan fiiri xarafka ugu soo laalaabashada badan waa kee. so a iyo b iyo c iyo d aan haysanaa. jawaabta saxda ah waa c oo l ah ayaa ugu soo laalaabasho badan. numberka 16aad haddaan fiirino. simplification of radical 48 marka la furfuro waxay la mid tahay 2 radical 12 b 8 radical 6 d 3 radical 16 d 4 radical 3. haddaba jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa d oo ah 4 radical 3 oo waxay ka imaaday markii simplification lagu sameynayo waa 16 lagu dhuftay 3. 16 lagu dhuftay 3 xeyd ka saar 16 4 waay 4 radical 3 sidaas ayay ku imaaday. waaya su-aasha ku xigta haddii aan fiirino 17aad. the length of the perpendicular line yani dhirarka perpendicularka ku ah laynka om in the circle below ee circlekan kaaga muuqda meesha calaamad su-aal ay saaran tahay dhirarkaasaa lagaa rabaa inaad soo saartid. so marka a waxaa haysanaa 5 b 8 c 3 d na waxaa haysanaa 4. haddaba jawaabta maxay noqonaysaa. so marka dhinacan maxaa tusaale dhinacan waxaa dhehnaa a waaye dhinacan hoose waa b waaye dhinacanna waa c. so marka a maxaa ku helaynaa a waxay la mid tahay c square
oo laga jaray b square. c meeqa waaye 5 waa square garay 25 laga jaray 3 square garay 9 soo kan ah a square waa kala jara marka 16 naxayd ka saar maadaama a araadineen anaga waxaa la mid tahay 4. jawaabta waa d 4. qaybta ku xigta haddii aan fiirino waa su-aasha 18aad. su-aasha 18aad haddii aan fiirino su-aasha 18aad number 18 waxaa haysanaa the gradient of the line. waxaa laga rabaa gradientiga line segmentigan ama barahan isku birayo oo ah 6,-5 iyo b oo ah 3,1 gradientia laga rabaa. so -2 1.3 0.75 2. hadaba jawaabta waxaan fiirinaynaa qaabka loo soo saaro gradientiga ama slope ama janjeerka qaabka loo soo saaro. so marka waxaa lagu helaa asaga gradientiga y2 laga jaray y1 loo qeybay x2 laga jaray x1 gradientia saas ku helaynaa gradientiga waa okay. y1 awe iyo y2 so kan ugu horeeya waa x1 y1 x2 y2 saas waa okay. y2 aku hormarno y2 maxaa waa 1 laga jaray sharci waay aye y1 meeqa waay waa -5 minus iyo minus isku dhici doona +5 loo qeybay x2 meeqa waay 3 laga jaray x1 meeqa waay 6 labada kale isku darsamaya waa 6 labadaas waa kala jarmaya -3 isu qeybi marka isu qeybin maxaa waay waa -2 waay. jawaabtu waa xarafka a ayaa ka dooranayna xarafka a. okay. su-aasha ku xigta aan fiirino marka 19 aan fiirino the number of ways tirada habab ama qaabab 3 gudi loo xulan karo laga xulan karo 20 arday waa a 1,140 b 6,480 c 6,840 d 1,410. hadaba jawaabta aan soo saarno marka hore waa combination waaye combination n iyo r okay. si kala daawo dhigna waa combination nta waa 20 students r-tana waa 3 selectiga laga dooranayo oo u dhiganta qaacidada isticmaalan maxay ahayd waa n victoria loo qeybay r victoria aye n laga jaray r victoria. hadama probability ay tahay qaacidada waa taqaanin already. okay. n meeqa waaye 20 victoria loo qeybay r meeqa waa 3 victoria kala jar haddana 20 n oo 20 ah r ka jar meeqa waa 17 victoria 20 kan aan furfuraynaa ilaa 17 jeer aan furfuraynaa 20 19 18 lagu dhuftay 17 victoria maadaama waxaa rabnaa 17 hoos inaan la bixin rabnaa 3 victoria furfur 3 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 1 lagu dhuftay 17 victoria so 17 isla bixinaynaa intaa kor isku dhufo waxaa isku dhufataa 20 lagu dhuftay 19 lagu dhuftay 18 20 lagu dhuftay 19 lagu dhuftay 18 6,840 waa kadib waxaa u qeybinaynaa kuwa hoos isku dhufo 3 iyo 2 iyo 1 isku dhufo 6 u qeybi waa 1,140 kasoo baxaysa 1,140 ways. so jawaabtu waa a ayaa ka dooranayna xarafka
A ayay noqonaysaa xarafka A. waayahay su-aasha labaatanaad aan fiirino. 3 by over 2 in degrees is, hadda waa radian, waxaa ka dhigaynaa degree markaa ka dhigna meeqa waa. so 3 soo qaado by qiimaheed meeqa waa 180 loo qeybay tirada hoos soo qaado 2. haye calculatorkaaga qabso, waxaa sameysaa 3 ku dhufo 180 3 ku dhufo 180 540 waa u qeybi 2 270 oo xarafka ee ah 270. waaya su-aasha ku xigta 21aad aan kusoo gabagabaynaynaa qaybtan. the type of triangle, noocan triangle-ka ah, right angle-ka ah waa nooc waxaa loo yaqaanaa triangle loo yaqaanaa opposite triangle iyo equilateral triangle. so jawaabta saxda aan ka doornayno waa A, right angle triangle ayaan ka dooranaa, right angle triangle. aad waa mahadsantihiin. muuqaalka intaan soo daawanaysay ee like garee saaxiibada la wadaag mahadsanidin.